دكتور عبد الرحمن محمد عبد حاشي ومشرح u taagan xilka madaxweynenimada Soomaaliya waxa uu kamid yahay aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee u guntaday badbaadada qaranka Soomaaliyeed halkudhiga دكتور عبد الرحمن محمد عبد حاشي waa badbaado qaran haddaba waa kuma دكتور عبد الرحمن محمد عبد حاشي marka ugu horeysa دكتور عبد الرحمن محمد عبد حاشي wuxuu ku dhashay magaalada Sheekh ee waqooyiga Soomaaliya 1955 dugsigiisa hoose wuxuu kaga baxay oo waxbarashadiisa ka bilaabay caasimada gobolka Sool Laascaanood waxbarashadiisii dhexe iyo sare wuxuu ku dhameeyay caasimada Soomaaliyeed Muqdisho shahaadadii jaamacadeed ee koowaad wuxuu galay oo ka qaatay Base University of New York wuxuu qaatay BA in accounting dabadeedna wuxuu galay postgraduate-kii waxbarashadiisii sare wuxuu galay John Hopkins University of Maryland ku yaala United States wuxuu sameeyay laba MA iyo MSc MA-da wuxuu ku sameeyay Applied Economics MSc wuxuu ku sameeyay Finance Dr. Abdi Rahman wuxuu ka soo shaqeeyay PricewaterhouseCoopers oo New York ku yaala wuxuu ka shaqeeyay sideetanaadkii oo New York ku yaala dabeedna wuxuu markii dambe ka shaqeeyay Citibank headquarterkiisa New York ku yaala waxa uu suurtooday inuu ka mid noqdo madaxda bangiga adduunka World Bank oo ku yaala Washington DC halkaas uu ka shaqeeyay 15 sano دكتور عبد الرحمن محمد عبد حاشي وaqoon-yahan ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha waxaana isweydiin mudan waa maxay aragtida دكتور عبد الرحمن محمد عبد حاشي iyo hadafka uu higsanaya arrimaha ugu muhiimsan aan arko xukuumadda cusub ee Soomaaliya laga dhisi doono 6 qodob oo waaweyn baan anigu arkaa inay aad muhiim u yihiin ta ugu horeysa waxa weeyaan sugidda amniga iyo sidii cadaaladda loo xoojin lahaa talabaad waxa weeyaan sidii dib u heshiisiin dhab ah loogu sameeyo ummadda Soomaaliyeed waxana laga qabto arrimaha mudugsan ee siyaasadda aad u qoto dheer oo dawladdu ku belgaargay ama beesha caalamku ay waxba ka qabanin arrinta saddexaad waxa weeyaan sidii dhaqaalaha waddanka dib loogu soo dhisi lahaa arrinta afraad waa sidii dawlad wanaag loo sameyn lahaa arrinta shanaad waxa weeyaan sidii wax loogu qaban lahaa oo gacan loo siin lahaa dadka qaxootiga iyo dadka soo barakacay ee waddankeena jooga aad la socotaan iyo ta ugu dambeysana waa arrimaha siyaasadda dibadda dhammaan xildhibaanada iyo qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliya waxaan leenahay ka fikiraayaha ummadda Soomaaliyeed qiimaha aqoonta iyo daacadnimada adigoo eegahayn haybta iyo qabiilka uu qofku yahay toona ka shaqee badbaadinta qaranka Soomaaliyeed kuna taageer codkaaga دكتور عبد الرحمن محمد عبد حاشي haddaba muwaadin haddii aad u baahan tahay inaad wax ka ogaato heerka tacliimeed ee murashax دكتور عبد الرحمن محمد عبد حاشي booqo bogga uu internetka ku leeyahay waxaad sidoo kale kula saaxiibi kartaa dhammaanba adeegyada internetka ee hortaada ka muuqda